وعنا wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mar kale barnaamijyadeennii mucjisooyinka qur-aanka iyaga oo video ayaan caawa halkan inaan idinku soo gudbiyo jeclaysistay marka meel walba aad joogtaan ramadaan la aqbalay ayaan idin rajaynaya dhammaanteen marka la socdo wanaagsan waxaan caawa ka hadlaynaa dayaxa inta jeera qur-aanka lagu sheegay ayaanu ka hadlaynaa haddii la yidhaahdo iyo saynsiga siduu u waafaqsan yahay ayaanu ka hadlaynaa saynsigu sida caadiga ah qarniyadii 16aad 7 ilaa 18aad waqtigii warshadaha ayuunbay saynsigu kor u soo kacay saas darteed qur-aanku waa 1400 oo sannadood jirsaday maanta oo sanado badan ka horreeyay waqtiga saynsiga xaqiiqada iyo mucjisooyinka ku jirta ayaan halkan idinku tusaa haddii la yidhaahdo marka koowaad waxaan raadinaynaa google ayaan leenahay google markaan sidan ugu qoro google-ka waxaan ku dhex qoraynaa imise jeer ayaa qur-aanka lagu sheegay maxaa la yidhaahdaa dayax imise jeer kamara dhukira alqamar fi lqur'aan yaad leedahay kadib ebaad ayaad leedahay sida caadiga qur-aanka waxaa lagu jira la sheegay dayaxa 27 jeer ayaa lagu sheegay oo ku kala jirta 37 maxaa la yidhaahdaa aayado maxaa la yidhaahdaa kala jirta 26 aayadood ayay ku kala jirtaa 27 jeer ee qur-aanka kariimka lagu sheegay dayaxa 27 jeer ayaa lagu sheegay mucjisada taas waafaqsan ee kale ee saynsiga ku saabsan ayaa ah iyadana haddaan u bedelo maxaa la yidhaahdaa tan saynsiga ay sheegeen google-ka isla google-ka aad furaysaan google-ka markaad furtaan kadib waxaad leedihiin waxaad ku qoraysaan how many times